Assalaamu calaykum. Wadadan aynu marayna maanta waxa weeyaan wadadii weyneed ee idaacadda. Wadadaasoo ka imanaysa boqoliyo kotonka ilaa Gubernimo. Maalmahanba wadadan waxaa ka socotay shaqo. Wadadan dadkii deganaa waa laga kiciyey. Halkan nimanka marayno dhismahan albaabkan dukaan baa ka furnaa. Waa laga qaaday wadadii. Xaggan soo jeeda meheradaha ka samaysnaa. Halkan hore meherado kala ka samaysnaa. Meheradihii wadooyinka u dhawaayay oo dhan waa laga qaaday. Wadadiina waxay noqotay wado weyn oo ballaaran. Inkastoo dhismayaasha qaar ay ku jiraan wadada, laakiin sidii hore ay ahaan jirtay wadadu way ka weynaatay. Qofka bari hore ugu dambeysay wuxuu oranayaa malaha maaha wadadiiba. Wadadii waa laga qaaday wixii jingadihii iyo dukaamadii iyo bacihii iyo wixii ka soo horjeeday. Wadadiina way ballaaratay. Parking baa la dhigan karaa sida gaarigan oo kale parking buu yaalaa. Markaa maalmahanba in muddo ah waxa ka socotay shaqo. Inay dadka waa loo digay dadka meheradaha meelahan ku haystay halkan oo dhan meheradaha u taxnaa. Waxaa lagu yiri muddada kaga baxa ama kaga kaca ama ka durka wadada. Markaa dadku amarkii way qaateen way ka durkeen. Sidoo kale wadadii hore ee meeshan maraysay ama wadadii hore ee samaysneyd aad bay u jajabtay. Way daloshantay inay meelaha qaar wadaduba lama arkayn meelaha qaarna wadadu way ku sii taalay. Markaa wadadii gebigeedii waa la fujiyey. Halkan iminka waa dhulkii oo kaliya wadadii gebigeedii waa la fujiyey waana laga qaaday gawaadhi baa lagu raray. Markaa sariibada idaacadda ama fooq Esko ilaa Gubernimo intaasaa shaqada iminka laga wadaa oo inta kale way dhiman tahay ilaa inta boqoliyo kotonka inta weli shaqadii lagama bilaabin. Laakiin intan wadada laga fujiyey ee la baneeyay muxuu ahaayay xaggan ciidda iyo waxaana gebigeedii wadada la fujiyey waxa weeyaan Gubernimo ilaa sariibada idaacadda meelahaas kolba qayb baa laga shaqeynayaa. Marka halkan waxaa laga fujiyey wadadii sidoo kale qasabadihii iyo waayaradii iyo wixii hoos maray oo dhan dib habeen baa lagu sameeyay oo sidee muxuu ahaayay wadada aan loo jabin dhawaanba waa la sameeyay qasabadihii iyo waxyaabaha biyaha marayeen. Ninka waxaan ku sii soconnaa halkii Gubernimo ku sii soconnaa. Masha Allah wadanka wax qabad baa ka socda. Halkan meheradaha ka muuqda meheradaha halkan ka muuqda. Berigii hore halkan gabadhu marayso barta gabadha bidixda ay marayso ayay meheradu yaaleen. Markaa meheradaha waxa amar lagu siiyay inay dib u durkaan ilaa 2 mitir ay dib xagga dambe u durkaan. Markaa cabir baa loo sameeyay waqti waa loo qabtay dib ay u durkeen meheradihii. Markaa masha Allah halkan waa iskuulkii biyo dhacay albaabkiisa oo ka markaa wadada shaqo ka socota. Halkan dhexda dhir baa lagu beerayaa sidaan maqlay. Laakiin haad waxay noqonaysaa xagga sii socda iyo haad soo socda. Waa intan ay wadadu ka weyn tahay iskuulka biyo dhacay area-diisaas. Markaa gawaadhidiina waa laga joojiyey area-dan laga shaqeynayo. Inkastoo si yar oo tuuga ay u marayaan basaska iyo waxyaabahaas qaarkood. Laakiin halka horena waa laga xidhay Gubernimo suuqa Gubernimo iska xagga dambe sariibada idaacadda in yar ma kala dhaafana halkaana waa laga xidhay oo camuud iyo wax la dhigay. Waayo shaqo ka socon doonta insha Allah. Sidoo kale waxaa la sheegay in loo sameyn doono meesha biyuhu marayeen iyo buundooyinkii dhir laga beeri doono maadaama ay tahay wadadan wada weyn oo waliba suuq ku taala waliba meelaha ugu muhiimka ah ee magaranaysa suuqii Gubernimo ee khudaarta iyo adeegyada badan laga qabanayay ayaa meeshan u dhow. Marka saa darteed shaqo badan baa laga qaban doonaa. Sidoo kale lacag yar ku bixi mayso oo kharash badan bay u baahan tahay dawladda hoose. Marka iyo maayir mooge kharash badan bay meesha gelin doonaan siday u eeg tahay maadaama wadadu weyn tahay inay meel tahay istaraatiiji ay tahay. Marka hawsheedu ma yara. Marka insha Allah inaguna waan waxay shacabka Soomaaliland wixii la qaban karnaa waan la qabanaynaa. Wixii dadaan qaban karnaa caawina waan caawinaynaa.